حرق كرقد حرقها وانا بحلمان قاعد شري موضوع شري ايش ابغى هول بنك يلا صباح جيب لي صباح يا عم مالك بدوني دقمة تعال تقدر القاسة شاي هالمرة ها 1 2 3 اوكي شو الحمد لله رب العالمين إله لا مهد اسكله سوكا كان حفلة شرفت بدن شعائلك بدن قروح بدن أهمية الدول إلى رجل دولة سلام إلى أمريكا صلاة الإسلام كأقول سلام إلى تذكي مسؤوليته ودولة الفيدرال كصعوبة وإلى كان حافظ كان يشتغلان باسبورada ay Soomaaliya ugu baahnay oo dawladda Soomaaliya xafiiska ugu horeeyay sida sheekhu u sheegay oo maanta laga furay dadda furay inoo ahmiyad weyn aan aad iyo aad u salaameynaa aan uga mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahad iska leh shaqada ay soo qabteen oo degmada u soo qabteen oo ay maanta inoo keenay waan uga mahadcelinaynaa innagana أولاً يا رباهين اللي كمان ودولد أكيد الله. أولاً واحد ما هذا علينا يعني وفتي شرفت له كدوان كوجامين يو أخيار كترسان حياة الجنسية سعودالك سفر كنوبي يميل عاصمة الصومالية مركز بعد معمول كدمدا ونعانتي سوى سن نوبي بسيين نوبنا شقيين sidoo kale odayaasha iyo dhammaan gabdhaha akhyaarta kale marti sharafta dhammaan ragga ka soo qayb galay iyo gabdhaha waa u mahadcelinayaa sida wanaagsan oo ay nooga shaqeeyeen una soo dhaweeyeen xafiiskan jinsiyadda iyo socdaalka Soomaaliya qaybtii bixinta baasaboorada markaan ka tago mahadcelinta ka bacdi waxyaalaha keenay ama baahiyaha keenay in xafiiskan la furo kadib markii dawladda Soomaaliya ay u aragtay baahi taagan oo loo baahan yahay in xafiiskii baasaboorka degmada laga hirgeliyo iyo qaybtii jinsiyadda socdaalka meesha la jiray customka shacabka deegaankuna uu soo dhaweeyay baahidaasna ay gudbisteen loona soo aqbalay sidaas ay ku hirgashay in xafiiskan la hirgeliyo إلهي مهديس وها حفيز كان هوشيس وحي سعتي مدة كله 8 بلاد وها إلهي حمدك سمعت إنه يشوفتو حلقي حركة لقى شري لها ما أنت حركة لقى شري لما وحنا مهد علينا إن أنت كغير قاعدتي وأنا مهسنتي لما أنت السلام عليكم ورحمة الله. قدوميات دقمدة والله أنا جلست على السياحة هي صراحة odayaashana waddoonada dhalinyarada qoliyaha bulshada nagala jooga baha saxaafadda ciidamada sharafta leh oo federaalka oo runtii aan aad ugu faraxsanaa markii ugu horeysay oo ciidan federaalka soo galbiyay awal ciidanka meesha ay la socon jiray ama ciidan loo runtii ardaad farxad gooni maanta ay tahay salaan kadib runtii warkii inta loo raraa waa la yiri xafiiskan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala inuu furmo oo la keeno laakiin hal sano oo xaraj iyo dagaal loo soo baxo hal sano 1 year buu qaatay in xafiiskan la furo markastoo buundal dhaafo buunda kala hor istaagaysa laakiin ilaahay mahadiis maantay waa lagu guuleystay runtii walaalaha fududeeyana waxa kamid ah gaashaan la sare walaalkeen maxamed aadan jimcaale koofi ayaa raggiina la fududeeyay kamid runtii mahad way u jeedinaya sidoo kale xasan oo runtii hawlahan la fududeeyay walaal barre oo asaguna halkan hawsha ka waday iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay wanaagga meeshaas xaq ilaahayna waxa uu jira anaguna milaad ahaan amalka soo hayno waa sax wax xafiiska ugu horeeyay oo federaalku uu badoob keeno لكن إن شاء الله waxaan rajaynaynaa inay kuwa kalena sida ugu dhasaha badan ku xigi doonaan sida custom oo kale
الله